barnaamijka dhalinyarada maanta. halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee efemiyada Geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com. waa maalin axada 5 bisha Juulaay sanadka 2020 Afrikada bari saacadu waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo Washingtonna saacadu waa 6:00 subaxnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta waxa iyagu guryahooda jooga sabab la xiriira cudurka coronavirus idin la socodsiinaya Nuur Xasan Nuur Bukhari iyo anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda duhurnimo waxa kamid ah barnaamijka hibada iyo halabuurka oo marti ku yahay halabuur dhalinyaro ah oo gabayadiisa ku dhiirigeliya gabdhaha Soomaaliyeed badana wacyigelinta dhalinyarada wiil iyo gabdhaha hadii loo eego suugaanteedu badana wax xoog ku saara hablaha markii habluhu ay banaanaadaan ayuu masqana wanaagsanaadaan ayaa dadkuna wanaagsanaanaya kaalmihii heesaha ayaan barnaamijkeena ka marnayn ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idin haynaa balse intaas oo dhan waxa ka horeeya warkii dunida oo noo akhriyo Nuur Xasan Nuur Bukhari mahadsanid Maxamed madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa xalay mar kale wacad ku maray in uu ka badin doono kooxaha bidixda fog ee xagjirka ah kadib khudbad uu ka jeediyay aqalka cad oo uu kula hadlay shacabka Mareykanka oo sabtidii shalay ilaa xalay u dabaaldegayay maalinta xorriyadda ee 4 Juulaay madaxweyne Trump oo khudbadiisii xalay shabahday tii uu habeenkii Jimcaha ka jeediyay buurta Mount Rushmore ee gobolka South Dakota ayaa cambaareeyay dadaallo ay dadka u dhaqdhaqaaqo sinaanta bulshada ku rabaan in lagu rido taalooyinka hogaamiyayaashii gobolada Koonfureed ee u ololeyn jiray in dadka madow aysan ka xoroobin adoonsiga caddaanka Trump wuxuu sheegay in kuwa rabo burburinta taalooyinka taariikhiga ah ee Mareykanka ay doonayaan in ay burburiyaan Ameerika dhinaca kale musharaxa ka socda xisbiga dimuqraadiga Joe Biden ee bisha November madaxweyne Trump kula tartami doona doorashada ayaa ku eedeeyay Trump in uu maalin walba helayo wado uu ku burburiyo dimuqraadiyadda Mareykanka shacabka wadanka Croatia ayaa hadda maanta u dareeray goobaha codbixinta si ay u soo doortaan dawlad cusub xilli dalka uu la daalaa-dhacayo cudurka COVID-19 goobaha codka laga dhiibto ayaa furmay saaka 5 subaxnimo waxaana la soo xiri doonaa galabta 5 2 saac kadib marka goobaha codbixinta ay xirmaan ayaa lagu dhawaaqi doonaa natiijada hordhaca ah xisbiga talada haya ee midigta dhexe ayaa la filayaa inuu in yar ka bato xisbiga Social Democratic laakiin midkoodna ma heli doono aqlabiyad ay ku soo dhisaan xukuumad dhageystayaal warka caalamka aad buu mahadsan yahay Nuur Bukhari oo warkii dunida nala socodsiinayay halkaad kala socoteenna waa VOA oo idinkaga imanaysa Washington haatana dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka hibada iyo halabuurka waxa magaalada Boosaaso noogu soo diyaariyay Yuusuf Maxamuud Yuusuf waxaan wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka hibada iyo halabuurka waxa toddobaadkan marti noogu ah barnaamijka Maxamuud Siciid Daahir oo kamid ah dhalinyarada halabuurka leh ku sugan magaalada Boosaaso isaga oo baraarujin iyo waliba wacyigelin u sameeya haweenka kaas oo suugaan uu ku cabiro wacyigelinta haweenka arrimaha dhaqanka waa mahadsan tahay wariye Yuusuf aad baan kaaga mahadcelinayaa waqtiga qiimaha leh iyo marti sharafta martisay runtii waxaan ka mid ahay halabuurada da'da yar ee ku nool gobolka bari gaar ahaan magaalada Boosaaso runtii horta halabuurku wuu kala baxaa halabuurnimadayda aniga waa hibo rabbi runtiina waxaan oran karaa waa xatooy hibooyinka Ilaahay ka bixiyo hibooyinka ugu wanaagsan sababtoo ah dareen dhan baa xabaarsan tahay bulshada dhan haday jacayl tahay haday wadaniyad tahay fariin walba oo dadweyne ka socota ama maxay xayawaan ka socota wax walba adu waxaad u qaadaysaa waa u hadlaysaa waayo de xayawaanka xuquuq bay leeyihiin maxay danyartu xuquuq bay leeyihiin bini'aadamku xuquuq bay leeyihiin marka taasaan horta
raxmadaas ilaahay ugu banaystay ee hibada ah ilaahay baan uga mahad celinayaa. door intee leeg baa ka qaadataa ee wacyigelinta dhalinyarada ee xilligan iyo in dhalinyarada ay noqdaan dhalinyaro ku jahaysan dhanka wanaagga? runtii wacyigelinta dhalinyarada aanba u badnaaday halka haweenka, waayo markii la leeyahay bulshada lafdhabarteedu waa haween. badanaa wacyigelinta dhalinyarada wiil iyo gabadha haddii loo eego sugaanteedu badanaa waxaan xooga ku saaraa hablaha. markii habluhu ay banaanaadaan ayuu mataqaanaa wanaagsanaadaan ayaa dadkuna wanaagsanaanaya. marka sidaa darteed iyadana maxaa xilligii tahriibada oo badaha aadka loogu mataqaanaa daatay oo dhalintu aadka u mataqaanaa daalaadhiceen iyagana waxyaabo badan aan ka tiriyay baa jira. gurigaaga tolmoon maanse la yiraahdo oo tahriibka diidaysa iyo qaar kaloo badan. intaan u gudagelin hal abuurkaaga iyo barnaamijyada halkan noogu qoran waxaad ii sheegtay inaad haweenka inta badan aad xoogga saadho, gabdhaha aad baraarujisid, aad wacyigelisid. marka waxyaabaha ugu badan ee haweenka ama gabdhaha dhalinyarada ah ee hal abuurkaaga aad ku wacyigeliso maxaa ka mid ah, maxaa u sheegtaa? runtii haweenka marka la leeyahay waa lafdhabarta, waa hooyo, waa walaal, waa xaas, waa sin wada ogsoonna waa inanteeni. dhammaan intaasoo dhan iyagoo ah runtii waxaad arkaysaa in waayada tan dhamme ay hablihii maxaa timihii qaawiyeen, maxaa dhar khafiifa qaadanayaan, in badanna ay mataqaanaa inagu soo daalalacayso dhaqankii galbeedka. marka badanaa maanso la leeyahay tarajeedin baa jidha aan ugu isbarbar dhigayay hablihii dhaqankeena iyo hablaha haatan jooga. maanso duuban baa jidha oo iyada qayladaan la yiraahdo. maanso kaloo kaafiye la yiraahdo baa jidha iyaduna dharka iyo habdhaqankooda ka hadlaysa. xatooy haddaynu sooba qaadno maalmihii dhoweyd xatooy baraha bulshada waxaa haystay yuusuf hablo dharkii ragga xiranaya siduu ilaahay subxaana wa tacaala inoo sheegay ama diinteennu inoo sheegtay uu nebiguna inoo sheegay sala allahu calayh wasalam. nebigu wuxuu ku leeyahay naclad baa korkeed ahaatay gabadha iska matasha maxaa raga, sidoo kalena ragga iska matala dumarka waa la mid iyaguna. maasadaas haddaan in yar kaba soo qaadano, hablow gedigiin imaqal hadal gaara baan sidaa, hawraan maansoo macaan wanaag lagu hooriyo, dardaaran hagoogan baan hablow idin soo sidaa, hablow maankiin ku dayr. hablihii hore caadadooda haddaan wax yar soo dulmaro, xishood hufan bay lahayd, hadal qunyaray lahayd, midab hanaanay lahayd, hugoo lagu faana iyo hagoog wacan bay lahayd, hanaan iyo muuq fardeed geenyo xalab bay ahayd, gaari hufan bay ahayd, geel lagu soo hirtiyo haldoor la xushay ahayd. barbaartu u kala hormari horweyn iyo kadimo geela habboon laga dhiibayo hanaan loo maray ahayd. hasaawaha kolkii la joogo hadal xigmaday lahayd, haddaad halxiraalo keento habboon suugaan furtiyo hanaan wacan bay ahayd. hamaha inan soo casaysa haruub iyo dhiil samaysa, darmada falkisoo habaysa, dhigtiyo loolkana hagaajin, arigana aan hallayn, maqashana ruux u heesta, ubadkana kala hagaysa, sidii geed harac qabow habboon lagu hirtay ahayd. haddeer qaar baa beddelay dhaqankoodii haleelay, haddeer qaar baa la yaab leh dhaqankoodii halleeyey, habluhu waa sida faraa gidib may wada hallaabin, hablaha dhaqankii adkeeyey. runtii yuusufow dee hablana waa ay macnaha dhaqankii galbeedka ayuunbaa lagu dayanay, hablana dhaqankeennii bay haystaan weli haddaad sii fiiriso. maxaa keenaya markiin dumarkay sidaas sameeyaan? waxaa keenaya in waalidkii ama walaalkii gabadha la dhashay ama maxaa sidoo kale haldoorkii dhiirigeliyaashii iyo wadaadadiiba ay badanaa ka gaabsadeen inay la hadlaan hablihii. haddeer qaar baa beddelay hannaankii iyo xishoodka tuuray, hagoogtana aan baqaadan, hablaha huggoodii saluugay, huggoodii khamiis ka yeelay, hagoogtana cimaamadiyo go'ii shaal soo huwaday. waa hablihii dhowaan baraha bulshada haystay dharka. waa maasatan waxay daaran tahay hablaha dharka ragga isticmaala. hannaan qurux miyay u qaaday hadday dharkeediiba diiday, hugii ragga ay u roortay hagoogatay cimaamadoodii,
anaa kuu naxaayo huunno hilibkaygu kuu yardiiri hannaan quruxdaada maaha hagoogtaadaa macaane ku dayr habboonay jidhkaaga rijaal hagoogtii ma fiicna cara eebbaad hagoogan jidhkaagaa wada hannaanka dhabankaa halabtu jiifto habboon ha u qaawin liidka hawiye naartii hagaynin halaag eebbana ha doonan habboon jidhkaaad bannaysay horarkii habar dugaagga ayaa hunguri u qaadi intay ku halabsan heedhe xijaab ku habool jidhkaaga hawraarta maansadayda habboon waan kuu dhammeeyey ducaan kuu hibeeyey huunno rabbi ha ku soo hanuunsho runtiina ilaahay baan ka baryaynaa inuu gabdhaheenna soo dhammaan gabar iyo wiilba inuu ilaahay soo hagaajiyo. rugwaani xaggee u marisaa marka baraarujintan dumarka xaggee baa uga faa'iidaysaa? runtii way jidhaa bandhigyo si gaara aan hablaha ugu qabtay sidoo kalena waxay beydkayga ayaan soo gashaa oo aan kula dardaarmaa walow badanaa aad inta ugu badan beydka alxamdulilaahi rabbilcaalamiin iyo gabdho badanba ay ka soo mahad celiyeen waanada iyo wacyigelinta aan xagga dumarka ku wado. ilaa intee jeceshaa marka inaad ka gaadho hal abuurkaaga oo aad wacyigelintaan sii wado? runtii waxaan leeyahay faanoole faray kama qodna. runtii waxaan rajaynayaa inaan sabab u noqdo insha allahu hadduu ilaahay ii garto aniga iyo bahda suugaantuba inkastoo dee wadankii markuu burburay bahdii suugaantuba ay la mid noqotay bahihii kale. bahda suugaantu wadankeena iyadaa u sareysay waagii dee dowladdu ay joogtay hadeerna burburkaa saameeyey. insha allah way soo laaban doontaa haddii ilaahay idan ka dhigo. waxaana rajayn doonaa inaan bedelno dhammaan inta xumaha faafisa. waxaan soo noqonaynaa baraarujinta dhalinyarada. waxay sheegtay dhinaca wadaniyada dhalinyarada xilligaana inta ugu badan ee burburkii waxa uu saameeyay waa dhalinyaro oo adoo ah kamid tahay. marka baraarujinta wadaniyada oo dhalinyarada u sheegayso yaa kaa caawiya adiga inaad dhalinyarada ku baraarujisid wadaniyada? runtii horta alxamdulilaahi rabbilcaalamiin yuusufow horta waxaa iga caawisay hibada rabbi uu isiiyey ilaah subxaana watacaala baa iga caawiyey iyo dhammaan dhalinta iyo dadkii waaweynaa iyo waayeelkii iyo de markaad la sheekaysato ninku kaaweynil ku xigtaaw markaad la sheekaysato oday waayeela nin kula asaaga mid ka hooseeya wax badan baa raayigaaga koraya. waxaan leeyahay waxaa iga caawiyey dadka wadaniyada jecel hadday tahay dad waaweyn iyo hadday tahay dad da'yar iyo aqoon-yahanada iyo dhammaan intii samaha jecel. aad iyo aad gabaygii da'yaray kaca maanse la yidhaahdo. sidoo kale waxaa jidha qalinka lagugu quursaday iyaduna oo da'yarta ku baraarujinaysay aqoonta. sidoo kalena maansadan aynu galabta halkan ku hayno waa soo xulatay maansadii degal waxaan ku noolnahay. degal waxaan ku noolnahay waxay tilmaamaysaa wadanka aynu maanta joogno siduu yahay. marka waxa inoo sheegaysa maansada kol haddaan u dowgalo deelayda maansada ma doondoona aniguye sida daadka roobkan darandoorre uga dhigi ma digsiinin maalmee inaan daayay laymood doorka aan ka leexdee afka aan ka duubtaa warma laygu durayaa doorkaana maansada waxa aan u dayro deelay u soo jabin dadow idinka weeye dhagihiina soo dayr. waxaan la dardaarmayo wadadu waa idinka ayay leedahay khaasatan daayarta. degal waxaan ku noolnahay dadku uu isquursado dadka ruuxa kuu xiga dabin loo maleego demin daabyo loo dhigo. degal waxaan ku noolnahay darajadu qabiil tahay dadka reerka ugu badan uu darajo yeesho dub waliba loo xiro. haddaad aragto in aynu dee da'yarteeniiba haddaad aragto ama dadka haddaad wadankii fiiriso wax walba waxaa lagu qaybinayaa beelahee badan. taasuna waa qabyaalada in haysata. kuwa kalena deelqaaf quurshi loogu dowgalo lagu oran dameerku iyo dugaagaa ku dhaamee kaftan dabuubay kaa xiran. degal waxaan ku noolnahay dadka qaar la dafiray oo lagu yidhi dastuur male iyo tariska dunyada. runtiina dee waxaad arkaysaa ummadaanba talinayd doc kastayba tahayba ama ummado ka maqan taliska soomaalideenna. degal waxaan ku noolnahay dabadhelif shisheeyuhu dadka ugu sarreeyo uu u dooran yahay gebi
degal waxaan ku nool nahay runtii xaqa la dadayoo dibindaabyo iyo been loo wada durbaantumay xaqiiba waa laga cararayaa haddaad aragto yuusuf ninkii xaq sheegana waa la xirayaa degal waxaan ku nool nahay ruuxii damiir wacan dabin xariga loo dhigo jeel loogu dawgalo degal waxaan ku nool nahay doonyo la kala siisto karan iyo dirkiisii dubdhaqanka loo xiray degal waxaan ku nool nahay ruuxii damiir wacan dabin xariga loo dhigi jeel loogu dawgalo degal waxaan ku nool nahay damiir wacan indheer garad uu doqonku doodsiyo degal waxaan ku nool nahay doonyo la kala siisto karan iyo dirkiisii dubdhaqanka loo xiray degal waxaan ku nool nahay dilku uu bannaan yahay degal waxaan ku nool nahay dadkiisiiba quursado diircadaha gaalkuna taladiisa daabaco haddaad fiiriso talada iyo wax walba waxaa faraha kula jira dowlada shisheeye degal waxaan ku nool nahay dadku uu iscelin karin maatada la daryeelin maatada darbijiif warkiisdaa dayac buu u go'ayaa degal waxaan ku nool nahay oday duub qabiil yahay dadka kala dilaayo midnimada damloon gelin degal waxaan ku nool nahay doqonku uu u taliyo geesi dirc rijaalkii daldaleenba waayuhu daldalooladeenii ma dulmaray in kugu filan sida doobi caanood ma kuu dhiibay deelley ducaan soo dulmarayaa dadoo aaminta raaciya daa'inow allahayow dadku uu samaadaa dadku uu wacnaadaa cuqdadiina daalisay daad caafi naga mari daa'inow allahayow xaqu uu dilaacaa danyar iyo masaakiin darajadood samaata runtiina dee dad badanoo aan cod lahayn baa jira runtiina inta aan jeclahay ama damiirkaygu nool yahay xulkay xabaal ka sarreeyana waxaan jeclahay inaan u hadlo marar badanna aan qareen u noqdo ummadda aan hadli karin waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka hibada iyo hal-abuurka ee idaacadda v o a gabagabada barnaamijka ayaan soo gaarnay abwaane waxaa rabaa oo kale inaan ku weydiiyo maansooyinkaaga waxaa ka mid ah qisooyinka jacaylka oo inta badan dhalinyarada hal-abuurka leh waxa ay xoogooda saaraan ama target ay ka dhigtaan waxyaabaha lamaanaha jacaylka oo kale ama qisooyinka jacaylka dhacay oo kale maxay ku doortaan dhalinyarada hal-abuurka leh inay mar walba ka warramaan qisooyinka jacaylka runtii horta qareenka jacayl haddaad maqasho waa hal-abuurka runtiina badanaaba haddaad aragto abwaanku waxa uu tirinayo bulshadaa leh dee qof dulman oo aan hadli karin bal adigu maxaytooy haddii yuusufow aadan tix lahayn runtiina aad jeceshahay inaad wax tiraahdid dee hadal markii aad ku soo koobaysid hawsha iyo markii aad gabayd hadhuu noqonayaa oo dee wax aan abidkii baabi'in bay noqonaysaa suugaantu laakiin hadalkii inantii waxa laga yaabaa inay ilowdo laakiin suugaantii xataa hadday ilowdo waxay arkaysaa markay duuban tahay ama aad abwaan uu baahiyo markasta waxay dhagaheeda kusoo dhacaysaa marka qareenkii dadka jacaylada waa abwaanada adu maxaa ka tiri marka arrimaha jacaylka runtii horta runtiina jacayl qisa xanuun badan baan kasoo maray gabayga xaal caasha baa i qoseeya sidoo kale maanse la yiraahdo ma wareegan wada dhalasho may lumin maanse la yiraahdo baa iyaduna i qoseysa gabayga xaal caashaqna waa gabay aad aan u jeclahay oo aniga i qoseeya dee maansooyinkayga iyo dee haddaad gabayadeeduba runtii gabayadeedu ma badna jacaylka laakiin maansooyinkayga iyo heesahaygu ilaa boqolaal koor bay u dhaafayaan waa tahay gabagabada barnaamijka fariintaada ugu dambeysa aada leedahay dhalinyarada meel walba ay joogaan ay ku dhegaysanayaan abwaane waa kaaga mahad celinayna waqtigaaga siisay fariintaada ugu dambeysa aad uga tegayso dhalinyarada maxaa weye runtii waxaan uga tegayaa dardaaranka guud aan uga tegayo dhalinyarada runtii dhalinyaradu waa 75% baa la yidhaahdaa 75 bay ka yihiin bulshada markii la leeyahay Soomaaliya waa 75% dhalinyaradu sidaasoo ay tahayna 75% bal Yuusuf qiyaas awoodda ay leedahay sidaasoo ay tahayna wax walba iyagoo qaban kara ayuun bay haddana jiifaan waxay ku leeyihiin dawlad baa maxay ku xiraysa dawlad baa ku cadaalanaysa dawlad baa maxay madaxa kaaga istaagaysa runtii dawlad iyo dhalin midaysan waxa xoog weyn sidaan aaminsanahay
dhalinta SYU dhalinyartii SYL 15 dhalinyaro ah bay ahaayeen si wax u bedeleenna waad arki kartaa bal 100 dhalinyaro ah iyagana awoodood qiyaas hadii 15 ay wax bedeshay marka waxaan leeyahay dhalinta meel kasta joogto hal ay saaco hal ay ku wada tashado hana laga dhidiyo maxay dhagartii xumeed ee qabyaaladda ha laga dhidiyo oo ha loo soo jeesto sinjimida iyo Soomaalinimo taasaan kaga tagaya sidoo kale maxay hablaha iyo ragaba labadaba waxaan leeyahay oo faraya iyagana in waayadan badan waxaad arkaysaa social media in hogi ay haweenkii ka tagayaan waxaan leeyahay marnaba gabari ay ma geedo kuwa caayaya kuwa aflagaadeynaya marka gabari ay ma geedo laakiin se waxaan leeyahay walaashay baa tahay ishagoog inta aan hagoogtii ka fanta laguga hagoogin oo aakhiro wax geyso dhaqanka hooyadaana raac runtiina dhaqanka hooyada marka aad raacdo waxa gabari waa hooyadeed baa leeyahay waxa kugu amaanan hooyada haddaad dayacan tahayna waxa kugu dayacan hooyada sidoo kale wiilashana waxaan leeyahay dhaqanka dumar waxa bedeli kara waa ragga marka idinku dhaqanka hagaajiya dumarku waxaan anu aaminsanahay hadii Yuusuf meel fiican ay ragga ka arkayaan inay u yaacayaan haddaad gabar wax u sheegto wax u dhaysaa raggii baa wasaas marka waxaan rajeynayaa inay ragguna door muhiim ah ka qaadan doonaan gabdhaha maxay hagaajintooda guud ahaan dhageystayaal intaas ayaan toddobaadkani ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkii hibada iyo hal-abuurka waxaa marti noogu ahaa Maxamuud Siciid Daahir oo loo yaqaano Abwaan Gacal oo ka mid ah dhalinyarada hal-abuurka leh ee ku sugan magaalada Boosaaso inta barnaamijkan la mid ah ku kulmi doono anigoo Yuusuf Maxamuud Yuusuf oo idin la sidaas iyo nabadgelyo barnaamijkaasi hibada iyo hal-abuurka uu nala socodsiinayay Yuusuf Maxamuud Yuusuf intaa haddii aynu kaga gudubno dhageystayaal haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii cayaaraha Nuur Xasan Nuur Bukhari ayaa soo jeedinaya mahadsanid maxamed bashiir dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta ciyaaraha ee idaacadeena duhurnimo ciyaaro ka tirsanaa horyaalada Yurub kuwooda ugu xiisaha badan ayaa shalay galab iyo xalay dhacay Serie A Talyaaniga haddii aan ku hormarno kooxda Juventus ayaa ku sii dhawaanaysa in ay horyaalka mar kale qaado kadib markii ay 4-1 shalay galab kaga badisay kooxda ay isku magaalada yihiin ee Torino ciyaaryahan Cristiano Ronaldo ayaa markii ugu horeysay tan markii uu ku biiray kooxda Juventus dhaliyay goolka loo yaqaan Bilizionaha ama laadka xurta ah 43 jeer ayuu Ronaldo isku dayay in uu Biliziono u dhaliyo Juventus waana uu ku dhacay marka laga reebo kulankiisii shalay ee uu gool qurux badnaa ka dhaliyay Torino mar uu hadlay wuxuu sheegay inuu aad ugu baahnaa goolkaas inuu dhaliyo si uu u soo celiyo kalsoonidiisa tuurashada kubadda xurta ah ama Bilizionaha goolasha kale Juventus waxa uu kala dhaliyay Paulo Dybala Juan Cuadrado iyo gool ay iska dhaliyeen Torino kooxda Lazio oo ku dhaweyd kooxda Juventus ayaa guul dareysatay markii 3-0 ay ku khasaartay kooxda AC Milan oo 4 kulan ee ugu dambeysay aan marna dhinaceeda dhulka la dhigin Milan goolasha waxa uu kala dhaliyay ciyaartooyda kale ah Hakan Çalhanoğlu Zlatan Ibrahimovic iyo Ante Rebic ciyaarihii kale ee dhacay horyaalka Serie A Talyaaniga waxaa ka mid ahaa Sassuolo oo 4-2 ku dardartay kooxda Lecce caawana waxaa ciyaari doona kooxaha Napoli iyo Roma labadan koox ayaa isku dhow tartan ugu jira koobka Europa League Inter Milan waxa ay caawfiidkii martigelin doontaa kooxda Bologna sidoo kale horyaalka Spain ee La Liga ayaa isna aanan weli lagu kala bixin oo aanan lagu guuleysan inkastoo kooxaha waaweyn aysan ciyaarin haddana ciyaarihii xalay dhacay kooxda Celta Vigo 1-1 ayay la gashay Real Betis Real Valladolid ayaa 1-2 kaga badisay Deportivo Alaves Granada iyo Valencia 2 gool ayay isku marwaayeen laakiin hadda maanta ayay ciyaarihii salay dhici doonaan sababtoo ah kooxaha waaweyn ee horyaalka ku dagaalamay ayaa ciyaari doona galabta goor dhow ayaa ciyaarta ugu horeysay dhex mari doonta kooxaha Athletic Bilbao iyo Real Madrid
Barcelona caawa ayay booqan doontaa Villarreal. dhinaca kale horeynta Real Madrid ayaa 4 dhibcood ka sarreysa kooxda Barcelona. ugu dambeyntiina horyaalka Premier League Ingiriiska ciyaaro xiiso laha ayaa dhacay. koobka waxaa mar hore qaaday Liverpool, hase yeeshee kooxaha ayaa u dagaalamaya boosaska hore ee loogu soo baxayo koobabka Champions League iyo Europa League. qaarkoodna kooxaha waxay ka ordayaan inay u laabtaan heerka labaad. Manchester United oo baryahan laga yaabanaa waxa ay shalay 5 gool iyo 2 kaga badisay kooxda Bournemouth. wiilka da'da yar ciyaaryahan Mason Greenwood ayaa waxa uu dhaliyay 2 ka mid ah goolasha. Marcus Rashford gool penalty ah ama rigoor ah ayuu dhaliyay. Anthony Martialna waxa uu dhaliyay gool. waxaa sidoo kale aanan ku qadin oo isna gool dhaliyay ciyaaryahan Bruno Fernandes. labada kulan ee ugu dambeysay 3 gool ayuu ciyaaryahan kari kooxda Manchester United u dhaliyay. Chelsea 3-2 ayay kaga badisay Watford. waxaa sidoo kale badisay Leicester oo 3-2 dirtay kooxda Crystal Palace. Wolverhampton Wanderers waa khasaartay. Arsenal ayaa 2-2 kaga badisay. dhinaca kala horeynta loogu soo baxayo Champions League haddii aan fiirino waxaa isku dhagan oo isku dhow Leicester City, Chelsea iyo Manchester United. Leicester waxa ay leedahay 58 dhibcood, 1 dhibic ayay ka sareysaa Chelsea. Chelsea waxa ay 2 dhibic ka sareysaa Manchester United. weli kulamo ayaa harsan arki doonee kooxaha afarta ama kaalimaha afraad ku dhameysta ee horyaalka Ingiriiska. dhageystayaal xubinta ciyaaraha waa naga intaa. Nur Bukhari aad buu u mahadsan yahay oo nala socodsiinayay xubintii ciyaaraha. halkaad kala socoteenna waa VOA oo idinkaga imanaysa waa hagaag dhageystayaal weli halkaad nagala socotaanna waa Voice of America Washington. haatanna aan ku nasanno heestani uu ku luqeynayo fanaanka Allahu naxariistay Cumar Dhulle Cali.
haysa